ciidamada degmada Dharkiinley waxa ay galabta laba arday ku toogteen garoonka Dhamma Yaasiin Cartan kadib markii ay iska bixin waayeen 2,000 oo shilin Soomaali ahaa. lacagtaas waxaa lagu daawanayay ciyaar dhex maraysay ciyaartooy ka kala socotay iskuulada lagu kala magacaabo Al Surca iyo weliba Camuud oo Dharkiinley ku yaala. maamulka iskuulka Dhamma Yaasiin Cartan amaba Al Anwaar ayaa waxa ay muddooyinkan wadeen koob loo dhigay iskuulo ku yaala degmada Dharkiinley oo soo diyaarsaday ciyaartooy iskuuladaas matala. waxaana shalay garoonka ka dhacay buuq taasoo keentay markii dambe in maamulka kulan maanta yeesheen xalay u arkeen in garoonka la keeno askar sugta amniga ciyaarta. intaas kadib ayaa waxaa maanta isku dayay garoonka inay soo galaan laba ka mida dhalinyarada degmada Dharkiinley, gaar ahaan kuwa dhigatay iskuulkii koobka dhigayay ee Dhamma Yaasiin Cartan amaba Al Anwaar, waxaana ay doonayeen inay garoonka galaan balse waxa ay askartii ilaalada ka haysa garoonka ka dalbadeen lacagtii garoonka lagu galayay inay keenaan ee 2,000 ahayd. deetana waa ay bixin waayeen, rasaas ay fureen, 3 ruux ay isku martay. mid ka mid ah dadkii ku sugnaa garoonka ayaa inooga warramay siday wax u dhaceen. walaal iskuulka Dhamma Yaasiin ayaa ciyaar dhex maraysay labada iskuul ee Al Surca iyo Camuud tartan loo dhigay iskuulada degmada Dharkiinley ayaa shil ka dhacay maanta kadib markii ciidamada dawladda ee degmada Dharkiinley ay ku toogteen 3 qofood. 3daas qofoodna 2 ka mid ah dhimatay halka mid ahna uu dhaawac fudud soo gaaray. marka shilkan wuxuu ku imaaday kadib markii ciyaalka la dilay lacag shilin Soomaali ah oo garoonka lagu soo galayay ay isku dhajiyeen. sidaas darteed marka ciidanka askariga ilaalinayay ayaa wuxuu go'aan ku gaaray ama yani xabad ka fakatay. sidaas darteed marka 2daas qofoodna way ku dhimatay, halkaas qofna uu qaawacmay. haye lacagta garoonka lagu galayay imisa ahayd? lacagta garoonka lagu galayay waa 2,000 shilin Soomaali ah. maalmihii hore ma jirin lacagtaasi, balse nidaamka oo halaabay awgeeda ayaa guddigii iskoolka waxay u yeerteen ciidamada degmada, kadibna si nidaamka loo adkeeyo 2,000 ayaa maaragtay lagu soo galay garoonka. marka 2,000 marka kulley maanta shilkaas ka dhacay. geerida kadib 2 ruux ee dhimatay iyo ruuxa dhaawaca, ciyaartii miyaa la joojiyay mise ciyaartu way iska sii socotay? may ciyaartii gabi ahaanba waa la joojiyay oo meeshii isku dhaxyaac iyo waxbaa ka imaaday. sidaas darteed ciyaarta dhan waa la joojiyay.